السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الشافعي رحمه الله. إمام الشافعي وحو دشي تاريخ هجري ومركة بقولية كونتون وحو ندنتي لبا بقولية أفر مركة يهيد وحو كل شيء ودنك فلسطين بكل شيء أبيه إساقو أو لبا سنة جربو جيريودي هو يدي باسوك حيسي أو لاتمد مكة إيا مدينة أرض الحجاز هالكاسي كنتي siduu cilmiga u barto. hooyadii qof aad u cilmi badan bay ahayd, qof caqli badanna way ahayd. waxayna nin qaadi aba iyadii maamo kaloo wax isku haysto hawle ka dhaxaysay buu damcintu kala geeyo inuu kala waraysto. waxayna ku tiri malihid arinta rabbi baa wuxuu yiri an tadilla ihdaahuma fatudhakkira ihdaahuma al-ukhra. marka haweenku laba markay yihiin lama kala kaxeeyo ayay ku tiri. imaamu shaafici ujeedadeenu waa hooyadii sida ay u soo tarbiyeysay baan rabnaa inaan ogaano. waa marka koobaade waxay ku tiri imaamu shaafici hooyadii isagoo yar waxay ku tiri yabni wiilkaygiyow aabbaha wuu dhintay adigoo yar, waxaan nahay dad fuqara ah baan nahay, xoolana ma nihin, mana guursanayo. si aad adigu wax u barato waxaan ku nadaray inaad cilmiga barato lacala allaha yajmacu bika shamla hadihi lumma. allah baa waxaan ka rajaynayaa in ummadan isagu ka timaado. ilaahay baan isagu keenay oo imaamkaas u noqday imaamu shaafici. imaamu shaafici hooyadii isagoo yar oo 5 jir ah baa waxay u dirtay madrasada quraanka. xoolana may haysanin, macallinkuna lacag mayna ka bixin jirin, waxna ma uusan bari jirin, laakiin ilmaha kale markuu baraayo ayuu dhageysan jiray. kadibna isagiibaa wax walba fahmi jiray. macallinkiibaa wuxuu ku yiri macallin markaad maqantahay ilmaha ma sii baraa? waa yahay buu yiri. kadibna markuu arkay wiilkii inuu wiil wax xifdiye yahay wuxuu yiri markaan anigu maqanahay sii bar, lacagna kaama rabo. sidaasuu imaamu shaafici iyo cilmi ku bartay quraankii. quraanka markuu xifdiyey cilmigii ayaa isaguna yuu bartay, isla markiiba culimada ayuu la fadhiistay. culimada cilmigiina wuu xifdiyey oo waa bartay. waxyaabaha cajabta badan ee hooyadii iyo isaga dhex maray waxay ku tiri leenqaabka u tarbiyeysay. waxay ku tiri ibni wiilkaygiiyo wacaahidnii cala sidq, waxaad igula ballantaa run inaad weligaa sheegayso. wuuna kula ballamay runtii. runtuna waxay wad imaamu shaafici manhajka xayaatadiisa iyo noloshiisa bay u ahayd. maalin maalmaha ka mid ah isagoo safar la socda ayaa safarkii niman tuug aba dhaxda u galay. kadibna way qabteen dadkiina waxaa nin walba waxaad haysakeen. dadkii kale waxooda way qarsadeen. imaamu shaafici wuu keenay. waxay ku yiraahdeen niyow maxaa kuu kalifay wiilkaagan yar inaad wixii keento sida ragga kaleba qarsadeen, maxaad u qarsan weyday? wuxuu yiri hooyaday baan kula ballamay inaana been sheegin. ninkii ciidankaa watay iyo nimankaa dadka baaranaya ayaa wuxuu yiri oo hooyadaa miyay kula joogtaa? maya buu yiri. ma hooyadaa oo maqan baad ilaalinaysaa ballanteeda? haa buu yiri. wuxuu yiri rabbi subxaanahu watacaala baan anigu ballantiisa ilaalin waaye miyaa? wiilkan yarna hooyadii buu ballanteeda ilaalinayaa. alleelaha ilaahay buu u toobad keenay, meeshiibuna ku soo celiyay wixii uu qaatay oo dhan. imaamu shaafici markii uu soo gaadhay 12 hooyadii waxay u dirtay imaamu maalik oo magaalada madiina jooga, isaguna makku markaa joogeen bay u dirtay cilmiga ka soo barabay tiri. wuuna aaday wuu ka soo bartay. mar uu soo laabtay hooyadii isagoo soo salaamayo ayuu yiri assalaamu calayka yaa ummi. waxay tiri waa kuma? wuxuu yiri waa maxamed binu idriis. maxaad keentay bay ku tiri. markaasuu yiri ji'tu bilcilmi waladabi, cilmi iyo aadaab baan keenay. waxay ku tiri matihid maxamed binu idriis, waa wiilkeedii orod noqo. wuu laabtay. imaamu wuxuu tagay maalik oo madiina jooga. wuxuu yiri saasa ugu dhacday. imaamu maalik intuu qoslay baa wuxuu yiri sababta hooyada ku soo celisay ma garanaysaa? waxaad tiraahdaa markay ku salaantay soo aad la hadasho ji'tu biladabi walcilmi, aadaab iyo cilmi baan keenay dheh. ha oran cilmi iyo aadaab. maxaa jira aadaabta ka horeysa cilmiga? sidaasuu imaamu shaafici waagii hore dambe wuxuu odhan jiray imaamu maalik waxaan ka bartay aadaab adcaaf wa adcaaf, wax ka badan cilmiga aan ka bartayba aadaab iyo akhlaaq baa ka mid ahayd waxyaabaha aan ka bartay buu odhan jiray. marka sidaasa ilaahay ayuu u soo tarbiyeysay hooyadii, sidaasuna isaguna ilaahay subxaanahu watacaala ugu badbaadiyey. haddaba imaamu shaafici raximahullah culimadii ka hadli jiray isxaaq ibnu rahaweyhi baa wuxuu yidhi u malayn maayo maa danantu ana allaha khalaqa mithla hada, والله لم تر عيناي مثله
kan oo kale weligay ma aanan arkin ayuu odhan jiray. imaamu axmed ibnu xamballa wuxuu odhan jiray wuxuu yahay imaamu shaafici sida dhulka oo kale wuxuu u yahay ka shamsi lidunya, adduunkan buu sida qoraxda u yahay, badanka iyo jirkana caafimaad oo kale ayuu u yahay. marka ilaahay subxaanahu watacaala hooyadaasaa soo tarbiyaysay oo maaragtay nasabkii isaga iyo imaamu axmed markaan ka hadlaynana waxyaabo badan baa ka dhexayn jiray. imaamu axmed baan ku gaari doonaa insha allah. wajazaakum allahu khayr wabaaraka allah fiik, wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu.